بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبنائي وبناتي halkan waxaynu si kooban oo maqal iyo muuqaal aynu ku duubaynaa duruustii aynu hore u soo qaadanay ee ad-duruus an-nahawiyya aynu ku qaadaa dhigaynay naxwada iyo barashadeeda aynu ugu magac darnay si fudud ku baro naxwaha darsigani waa darsigii koobaad luqad kasta marka lagu hadlayo luqadu waxay ka kooban tahay weero iyo kalimaadkaasi xagay ka soo jeedaan waa darsiga ugu horeeyeen qaadanayno takawunu al-kalimaat samaysmidda ay kelmaduhu samaysmayaan wuxuu yiri sheekhu min al-huruf al-hija'iyyati tatarakabu al-kalimaat الحروف الهجائية لو يقانو أما ألف بيتة اللغة العربية وألف باء تاء ثاء جيم عد والباء حتى المها يرى فربرشة سمين أي جرانيان أي حفظيين أي قري كران حروف تاس أي كلمة هناك كوبين حدينو حوجي سي عدينو وحوك يرشيخو كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء ميد كستو إنك ميد وقرانيا حروف تلو يقانو الحروف الهجائية وألف كاب اللوضة يأدنا يقدم بيسو حروف تا إيدا أي كلمده ككوبين فمن هذه الحروف حروف تا إيدا تتكون الكلمات التي نتلفظ بها في محادثاتنا ونستعملها في مخاطبتنا markaynu hadlayno marka aynu wax isweydaarsanayno wax isdhahayno hadalkeenu wuxuu ka kooban yahay kalimaadkaas oo isaga yimid xuruufta loo yaqaan al-huruf al-hijaa'iyya mithlu tusalahan abin ummin akhin ukhtin ijtihadin najahin abin مثلا haddaynu soo qaadano tusaale ahaan alif iyo ba ayay ka kooban tahay waxaana loola jeedaa aabbo ayaa loola jeedaa abnaa'i wa banaati waqad takunu al-kalimatu kalmadu waxay noqon kartaa xarfan waaxidan kalbaa'i fi bismillahi mathalan walhamzati fi alam nashrah ba'da bismillahi ku jirta iyo hamzada kalimada alam nashrah ku jirta alam ku jirta oo midaas guduudan ah وهل حرف وانا هل كلمة وحرفين بين نقون كرتا لبا حرف سيدا من يفي او كلا وثلاثة أحرف بين نقون كرتا سيدا عنب إيا وشجر وأربعة أفر حرف بين نقون كرتا سيدا جدول إيا وجعفر وخمسة بنقون كرتا سيدا سفرجل او كلا وستة بنقون كرتا سيدا زعفران او كلا وسبعة بنقون كرا سيدا استفهام أو كلام كلمة اللغة العربية كلمة هاي كوبان تهاي كلمة تضبع حرف كبدا ما جرتو هذا با مر هدي نو اوغاني إن لغة أي كوبان تهاي كلمات كاسنا أي كوبان يهين حروف كلمات كوا ميقنع أنواع الكلمة أيين كحجنين أبنائي وبناتي وصدح قيبود اسم هي فعل هي حرف اسمك تساليس ومحمد هي عصفور فعلك تساليس وكتب يكتب اكتب حرفك تساليس وهل هي في هي لم الفعل فعل محل هذا فعل وحال هذا كل ما يدل على حصول الشيء وزمنه وحكست أو كتوسية وحدعي يحلقي ودعي أو وضع الصعودة تساليه سنة سنة نصور شاكني وكتب يكتب يكتب ودقي دونا marka waxa dhacay waa maxay waxa dhacay waa dhigaal wax la qoray waxba la qoray waa dhacdo waa xadath qoraalka la qoray
xilli tegay ficil maadi baa la yidhahdaa saan u tegi doono qoraalka la qoray xilli hadda jooga na ficil mudaaric baa la yidhaahdaa qoraalka la qoray ama lagaa doonayo inaad qorto markii uu hadalka dhammaado kadibna ficil amar baa la yidhaahdaa abnaa'i wa banaati alism ism maxaa la yidhaahdaa kullu maa nunaadii bihi alashkhaasa aw nusamiya bihi alashyaa wax kasta oo aynu ugu dhawaaqno dadka ama aynu ku magacawno ashyaada ama maalan boosaska magaalooyinka wadamada wax alla wixii magac sumad astaan ah ayaa waxaa la yidhahdaa ism shaygaasi maxsuusna wuu noqon karaa غayru maxsuusna wuu noqon karaa shay la taaban karo sida maalan cabdullaahi oo kale waa nin magicii waa nin dee la taaban karo oo loo jeedo shay macnawi aan uu noqon karaa sida alxub oo kale maalan ama alridaa iyo wixii la mid ah tusaalayaashii buu ku siiyey wuxuu ku yidhi axmed iyo xisaan iyo xajar waa magacyada ayay ka mid yihiin xaraf maxaa la yidhahdaa abnaa'i wa banaati xaraf waxaa la yidhaahdaa kullu maa laa yadharu macnaahu ilaa maca gayrihi waa shay kasta oo macno ku tusinaya laakiin naftiisa aan kaa tusinin ee maca gayrihi buu kaa tusinayaa wax kale markuu la fangalo waxa kale uu la fangalayana waa ismigii aynu soo sheegnay ama ficilkii aynu soo sheegnay markuu la fangalo oo uu ku xigsado ayuu iyaga macno kaa tusinaya laakiin keligii markuu yahay waxba kuma tusin karo tusaaluhuna waa hal iyo fii iyo lam ayuu noqonayaa waxaynu uga gudbaynaa abnaa'i wa banaati maa hiya calaamaatu lismi ismiga calaamadaha lagu garta waa maxay ismiga waxaa lagu gartaa aljaru hoos dhig sida rajulin التنوين لبا حركة سيدا محمد النداء دواقد سيدا يا رجل الكلمة وألف يلامة سيدا الكتاب الإسناد تيرنتا سيدا قام محمد با استاغي محمد با استاغي استاغي دني وحلو تيري محمد عدة سميسي استاغتي ومحمد مركا إن وحلو تيريو إن أي ألف يلام قشو أم وأقبليو in loo dhawaaqi karo ama loo dhawaaqa ama uu aqbali karo inuu tanwiin uu qaadan karo inuu hoos dhigmi karo ibn malik wakiilaha rahmatullahi alayhi bil jarri wat tanwiin wan nidaa wa al wa musnad lil fi'l tamyiz hasal abnaa'i wa banaati waxaan uga gudbaynaa intaas inaynu sheegno aqsaamul fi'li ficilku waa meeqa qaybood waa saddex qaybood bikul basata al maadi al mudaari' al amr ماضي محل هذا وهو ما يدل على حصول شيء في زمن مضى ووحي كتسي الشيء دعي شيء مت دعضو حدث دعي وحي كتسية حل التغينا دحدعة أما فالكاسي وحور دعي حل التغي والله صور دافي ماضي بلا مثال كنا خرج مضارع محل هذا وهو ما يدل على حصول شيء في الحال أو الاستقبال مثل يسمع وحي اسنا فل دعي او اما دعي حلي هدا لا جوجو في الحال بالغدا اما حلي سو سocdo استقباله يسمع ايو مثال ku noqonaya يسمع haduu maqlaya iyo يسمع uu maqli doona labadaba way noqotaa amar maxaa la yiraahdaa amarku waxa weeye huwa ma yutlabu bihi husulu shay'in shayga lagu doonayo ama lagu dalbayo inuu waxani inay dhacaan tusaale ahaan i'lam ogow yani wax fal dhacay baa la doonayaa markii uu ninkani kula hadlo oo amarkana adiga lagula hadlayo in markaasi aad wax ogaataa la doonaya oktub qor qum istaag waxba laga dalbaya shayga adiga laga dalbayo wixii ku tusiya ayaa waxaa la yiraahdaa amar la yiraahdaa waana mustaqbal dhamaantii isagu xaala iyo malaha abnaa'i wa banaati waxaynu inta uga gudbaynaa calaamatul fi'l ficilka calaamadihiisa waa maxay ficilkii waxaynu soo sheegnay inuu saddex qaybood yahay al maadi al mudaari' al amr maadiga maxaa lagu gartaa maadiga waxaa lagu gartaa qabuluhu taa at ta'niithi aw taa al faa'il inuu aqbalo ama aqbali karo taada loo yaqaan taa ta'niith أما تأذى الله يقان تاء الفاعل مثل تسالهان
قامت فاطمة فاطمة واستاكتي قامت وفعل ماضي maxaa yeelay taa u ta'niis taadii dhadigoodka ayaa gashay taa u faacilkana waa maxay katabtu waan dhigay aniga ayaa dhigay farqiga u dhaxeeya taa u ta'niis iyo taa u faacilna xagga luqad ahaan taa u ta'niis waa taadii ku tusinaysay cidda ficilkan samaysay inay tahay cid dhadig ah oo ayna rag ahayn lab inayna dhadig inay tahay taa u faacilkana macnuhu waxa weeye ciddii ficilkan samaysay ta'dii faacilka ahayd weeye macnuhu marka mithaalku waxa weeye taa ta'niidka waa qaamat mithaalka taa faacilkuna waxa weeye katabtu waan qoray mudaarica waxa lagu gartaa an yaqbala dukhul an-nawaasib wal jawazim inuu aqbalo waxyaabaha wax kordhiga nawaasibta loo yaqaano ficilka mudaaric gaarku ku ay wal jawazimi kuwa wax reeba ficilka mudaaric iyagana gaar ku yihiin عليه دشيسة إجلان مثل تسال أهان لن يفهم هذا يفهم هو فعل مضارع لن تاجش لن تو الناصبة وحبي نصب سا وحرف نصب مركا ما دام حرف نصب وفعل كمضارع قلي أما قلي كرو أقبلي كرو تاسال وقرتان فعل مضارع لم يفهم وجازم أيضا يفهم وفعل مضارع لم تاس جازمة أيا قشي أمر كم حال وقرتان أن يدل بنفسه على الطلب مع قبول المخاطبة إن أكتسيه نفس دي سنة كاتسيه طلب لقاد دونيه مع قبوله مع قبوله المخاطبة إنه يأذن له يقنا يا المخاطبة إنه أقبلنا يدعو للقب أما أي يدنا ماشى تاسنو وحي كتسيه وحي أقبلك يا المخاطبة اسنو وافع الأمر مثالكنا هو اعلم اوغو وفعل الامر waxaa kaloo lagu gartaa afcaasha waxyaabaha lagu garta kamid qad oo maadiga iyo mudaarica ay wadaagaan siin iyo sawfa oo mudaarica gaar u ah وهكذا calaamadahaas lagu gartaa halkaas aynu ku ekeyneynaa abnaa'i wa banaati fi akademiyada Zaylaci darsigeennii koobaad ee ahaa نحوها سفدود كبرى انت كل من دونه مركله هذا والله أعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين